السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو نقشوا عنا وناكسن ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله نحذين آدوكت هاي أما النبر أتفليسو وحير بتكوار جاحسة لكيسة وحد لها الحمد لله الحمد لله أيها لنا هاي إلهي حقي صحبة كمان أول وحي سؤال وستين وقعان كسو قارينو أن جبينو ليري ولاكس إلهي سبحانه قادر كحكي سانا كجبينين قعاليو حقالو وداعي قوانكي قعاليو حقالو وداعي قوانكي ويرقل شينو وينايقا قرغاتين ويرقل شينو وينايقا قرغاتين روح قالوا قعان قلي قيان مقاري كرو وقتن قوانكي وقتن قعلي حقالو قالوا إلهي قوما قعان قليو وكاقا دعينا يا marka horane waaba wax ay soo aloosteenoo aanu ogeyn sida tan inay ku dhacaayo waa ogeyn alxamdulillah fadli rabbi ilaahay baa ma hadda iskale aga gaarto sharaafi korkiisa abukaatahayga Anwar Ismaan iyo abukaata Xamuudi ayaa qadka la soo gelinay kan Xamuudi waa u dib dhici doona insha Allah dib ayaan ka soo sheegi doona hadda waxaan ku hormarayaa abukaatahayga oo goobjoog u ahaa maalintii nala soo wacay ilaa iyo markaan hadda uu codsada waraaqyaha mishinkan horta waa mishin la ii maleegay qofkan isqarinaya wuxuu doona ha ahaado ilaahay subxaana qaadirka iiga filan ilaahay baana ka tala saaranaya xasbunallahu wa ni'mal wakiil ayaan leeyahay allah igu filan iigana filan bini aadan oo dhan ilaahay rabbiga raxmaanka un waxaad iigu duceysaa inaana gacanta u hoorsan caafimaadkayga aana waayin aanan u jabin gaal iyo muslim ilaahu ha ii jabinin rabbiyo waa ku baryaayay caafimaadna ha iigu jabin rasaaqadna ha iigu jabin kuwaan allah iga sara mari rabbi raxmaano bini aadan oo dhanna baahidaada allah ka sara mariyo qof walba ugu duceynaya soo marka waxaan usoo noqonayaa qodobka abukaatahayga sidaa ogtiin maxkamad ayaan anagu leenahay maxkamad ayaan isu diyaarinaynay deedna waaynu wada tashanaynay oo waxaa noo socda wada tashigii hawsha waxay ku bilaabatay oo aad u jeedaay si xaqdaran oo xaqdara ah waxaa la hadlay Anwar wuxuu ku yiri go'aanaad soo gaarteen oo isla abtinawdan dhacay oo aad ogtiin inuu dhacay oo aad ka soo shaqeyseen guddi dhan ama kamuunkii dhan oo sanfiikan ama namdaha ama odayaashooda guddiga ah ee go'aan ku soo gaareen in familkan ilmahooda laga qarsado familkan ilmahooda la tusin sharcigaas waa sharci ka shaqeeya kamuun sanfiikan laakiin suu yiri anigu intaasoo sano ayaan shaqeynayay intaasoo sano bismillah intaasoo sano ayaan shaqada ku jiray ma arkin buu yiri go'aan bari la gaari rabo oo maanta waalidka la soo wacayo already na go'aankii la qaatay yeel ama diid marqaati looga dhigayo waalidkii oo macnaha sirta ama waxa ku duugana ay tahay just waa la xiriirnay waalidkan wada shaqeyn ma rabaan haddii aan la hadalnana waaba yani dadaan hadalka na caragelinayo qofkan muxuu kugu carageliyay ilmahaygii ma ka warqabtaa intaasoo sano ilmahaygii ma arkin ilmo yaryar ayaad iga haysataan 3 sano muddo ku dhow maanan arkin adiga 6 biloodba go'aan ayaad kamuunka namdaha horgeysataa waa lagu ansixinayaa shaqadaadii lagu cusboonaysiinayaa mushaarkaadii baa lagu sii wada furaya oo la leeyahay kamuunkaas iyo degmadaas waxay ansixiyeen ee dawladda sharafta la ka codsadeen oo isfaariya oo akoonka dawladda looga codsaday badbaadin la badbaadinayo caruurtaas balabala bay iyagu isku afgarteen bis afku malablana waxaa laga dhigayaa waalidiintii oo macnaheedu ay tahay waa la xiriirnay soo marka yani noyd inay ahayn waxaa ku dareemaynaa waalidiintan waalidiin dhib badan dagaalaba anaga iyo dawladda nala sii noogala sii yani
been baa loo sii aloosaya bas calaa kulli xaal just muhiimadayda marka aan soo daadago Anwar wuxuu ku yiri awalan waa qaldan tihiin marka kale go'aanaad soo gaarteen baad soo wacdeen marabta ama ha iyo may afar saac wax ka yar labo abukaata lawyer ma wadatid oo yiri tolki saddex yiri anigoo abukaata waraaqayahoodii iyo wixii go'aanka lagu gaaray iyo wax kasta oo kiiskooda maada ila soo socodsiin u dhahay waad qabsatay yiri go'aan ayaan adinka aad gaarteen ka Mozambique ayaad isku daba kacdeen okay aniga marka mid ayaa aan ku darsaday waxaan ku yiri hadda Sweden xaaladeedu xaalad illa ibri la saadaalin kara waa sharteeda oo ay tahay dabayl la socdaan anu waxaan deganahay Stockholm xaajigeygina gobolka ilmaha marka maadaaba la hada sharciga qiimeynayso oo wada shaqeynta waalidiinta ama tixgelin leedahay oo aad taqaan qaanuunka iyo sharciga anigu Stockholm baa deganahay maxaan ka soo gaaraa hadii aan imaado meesha ilmahayga lagu go'aansanay ileene laasim hadaan qalbiga ku riixsan laaxati aan arko wixii la dhahay sharci qeerba iska joog in case aan iska joog dabayla jiro lama shaqeynaayo liiri tariimadii iyo basaskii baa kala istaagay baabuurta shilalkii maanta batay marka maxaan ka gaaraa man ku just nin dan lama daalo ayada muhiimadeeda waxay tahay sida inay sheegay walaalayaal tus oo taabsi ka bacdi lawyerka yiri waa sax haye okay waxa soo wacda xaajiga xaajiyada intee degan tahay waalidiinta waa isku qoran yihiin adigu miyaa kala qoratay waa maya okay mala soo xiriirtay aniga sa waraaqihii ii soo gudbisay xakunka dhacaayo iyo in namdaha la horgeynaa anaaba imaan kara xatiye mana maya saan ku sheega waay gacan ayaa u galay dadka bini'aadanka kuba ugu cunsurizan ayaa ilaahay gacanta ii gashay la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim wallahi billahi bini'aadan lamida oo loo dhigi karo kuwan ma jiro bini'aadan loo dhigi karo ma jiro muhiimada marka waxay tahay waa ma wacdeen waalidka marka dawladii maadaama la afjiga ay dawladii ayaa waxa leeyahay ha waalidku wala xiriirin inta say ayada karabta waalidaysan tolki u kansan waalidaysa abukaatiyashooda la xiriirin waalidaysa in shirkadoomiye ilmahoodi loo suubinayo ilmahoodi la xakunsanayo xakun kale lix oo loo ansixinayo aysan u soo sheegin yeel ama diid waa kugu wataa wayno ilaahay ma joogo dad iska dulmanana dad iska dulman oo ilaahay subxaan qaadirka yaqaanana oo ayaga ku dhax noolo iyagoo rafaadinayaan noyd iskaga aho halka nabadgelyo u soo aaday caawin u soo aaday oo inay nafla caari yihiin inay ku badbaadaan u soo aaday calaa kulli xaal alxamdulillah ilaahay baa ma hadda iskale go'aankoodina hore ayayba u gaareen reedan afka ayaa nolol malabinayay wixii dhacana waa dhaceen go'aankina waa dhacay waana xakunsadeen ilaahay sidoo ka dhigaana sugayna insha Allah awlaadeedana ilaahay subxaan qaadirka gacanta ay soo galiyo maskaxdeeda inuu ilaahay xafidaha la igu soo duceeyo inuu ilmaha culays badan ayaa haysto cunugaas la qarinayo oo Sweden geeskeeda kala laga tuuray 8 saacadood 12 saacadood meel la geynayo aagaga dhan laga qarinayo waa cunugii asna fakanayo oo saddexaad oo yiri waalidkii u baahanahay marka caga jugleen badan iyo cadaadis badan lagu haayaa insha Allah waxbaan damacsanahay anaana dib iniga soo sheegayo laakiinse waa dhac go'aankii waana hirgashteen gaala ninkii u gacan gala wallahi billaah kaasa adduun ciil ku arka aakhira iska daa adduunyada ku gubanayna gaal hadad gacanta u gasho adduunka ku gubanay aakhira iska dhaaf qof baa danqado damiir dad baa yeeshto waalidiin waaye aan tusno ma jirto never ever waa bala go'aansanayaa bariiska loo sii xukunsanayaa xakunka sirid الله قارسي ومرك على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله ما هذا له